sida ka muuqata muuqaalkan labadan wiil oo yaryarka ah wiilka soke waa wiil aad u kulul wiilka shana waa wiil aad u qabow waxaase ku dhex jira saan filayo qof weyn oo barbaarisa ah mar walba wiilka soke waxa uu sameynayaa xadgudub ama kan shishe oo yarka ah buu dharbaaxo ku dhufanaya kan weyn yani kan shishena wuxuu ku fiican yahay waa wiil dulqaad badan oo dhoola cadeyn badan kan sokena aad buu u xanaaq badan yahay markasta oo uu ficil sameeyo kaas kan soke wuxuu sameynayaa in uu dharbaaxo ama farta uu u taago waxaa lagu leeyahay raaligeli walaalka oo ka daa dhibaatada iyo dharbaaxada wuu yeelayaa ugu yaraan ilaa 4 jeer 3 jeer ayuu dharbaaxaya marka dambe waxaa leeyahay khaladka ha qaado adiga waxaa sameysaa wiilkaas ma dharbaaxi kartid dharbaaxada ka daa walaalka weeye yaadan u xadgudubta wax fiican ma aha ha garaacin wuu yeelayaa wuxuu qaadanayaa khaladkiisa waa uu soo dhaweynayaa sidoo kale wuxuu u muujinayaa farxad ugu dambeyn waxay labada wiil ku dhamaysan doonaan in ay isu dhoola cadeeyaan oo ay hab isi siiyaan tani waxay muujinaysaa barbaarinta ubadku waxay kasoo bilaabataa inta ay yar yihiin waxaa loo baahan yahay qof walba oo annaga ka naga mid ah in uu ubadkiisa inta yar yihiin uu baro barbaarinta wanaagsan khaladkiisana la tuso ilmaha si uusan ugu xadgudbin qofka asaga la midka ah waayo qofku waxa uu dhibsado ayuu qof kalena dhibsadaa dulqaadkuna waa u dhalasho iyo qof walba iyo dulqaadkiisa dabeecadiis waad aragtaan inuu madaxii ka shumiyey inuu habsiyo waa aragtaan ayagoo faraxsan